Assalaamu calaykum sheekadii guusha ee Morgan Freeman sababta dad badan ay ugu aaminsan yihiin fikir qaldan guusha waa iyaga oo arka natiijada ugu dambaysa ee shaqo adag oo uu qofku soo qabtay isla markaana u maleeya inay nasiib ahayd weliba maqashay sheekada nin la yidhaahdo Morgan Freeman haddii aad wax badan daawato filimada Hollywoodka waxaa laga yaabaa inaad ogtahay inuu ka mid yahay aktarada Hollywoodka loogu tixgelinta badan yahay ee ku guuleystay marar badan biladda filimada ee loo yaqaano Oscar Prize taasi waa waxay dhab ahaan ka yaqaanaan dadku aktarkan balse wax fikrad ah ma ka haysata halkankii uu soo maray ka hor inta aanu noqon aktar caan ah oo guulo waaweyn xaqiijiyay sheekadii Morgan Freeman wuxuu ku dhashay dalka Mareykanka taariikhdu markay ahayd 1937 waqtigaasi oo ku beegnaa waqtigii midabta koorka lagu hayay dadka midoobay uu aadka u xooganaa iyadoo ay ugu wacan tahay dhibaatadan iyo cadaadiska midabta koorka qoyskiisa waxay go'aansadeen inay u guuraan meel kale si ay u helaan nolol ka fiican tay waqtiga ku jiraan Morgan wuxuu jeclaa inuu noqdo aktar lacagtiisa iyo waqtigiisa inta ugu badanna wuxuu ku bixin jiray si uu u daawado aflaamta marar badan waxa uu isku dayay inuu noqdo aktar balse kuma guuleysan waqti aad u dheer kadibna wuxuu isku arkay isagoo duulay ama pilot ka ah diyaaradaha militariga waqti kadib Morgan wuxuu xaqiiqsaday in mihnada uu dhab ahaan u jecel yahay ay tahay aktarnimada waxaanu go'aansaday inuu daba socdo oo uu ka midho dhaliyo sidii uu aktar u noqon lahaa Morgan daadiisa waxay gaadhay 45 jir isagoon wax weyn ah gaadhin laakiin muniyad jabin wuxuu sii wada isku daygiisiiba wuxuu guuleystay markay daadiisu gaadhay 50 jir ilaa uu kama dambaystii metelay filimada caanka ah markay daadiisu noqotay 67 jir Morgan Freeman wuxuu ku guuleystay biladda aflaanta kadib jilidiisii filimkii la magac baxay $1 Million Baby casharada laga bartay noloshii Morgan Freeman waxaad u malaynaysaa inaad ka habsaantay xilligaad riyooyinkaaga eryan lahayd wuxuu guul gaaray markii daadiisu noqotay 67 sano jir ma u malaynaysaa inaad da'da weynaatay Morgan Freeman wuxuu bilaabay inuu guuleysto markii ay daadiisu noqotay 50 jir haddii aad jeceshahay inaad guuleysto waad gaari kartaa meel kasta oo aad joogto da'daanu intay doonto hal ekaatee 2 ma nasiib baa mise waa adkaysi qofku si uu guul gaadho waa inuu la kulmaa guuldarooyin badan Morgan Freeman wuxuu ku guul daraystay marar badan ilaa ay da'diisu gaadhay 40 jir isagoon wax guul ah gaadhin balse maadaama uu ahaa qof aad u adkaysi badan wuxuu maareeyay inuu ku guuleysto riyadiisii markuu 50 jir gaadhay 3 raac oo ka shaqee waxa aad jeceshahay kuma guuleysan kartid shay haddii aanad jeclayn balse dhab ahaantii waxay noqonaysaa mid aad kugu fudud inaad ku guuleysto waxa aad jeceshahay marka la barbar dhigo ku guuleysiga waxa aad neceb tahay hel waxa aad jeceshahay inaad qabato oo raac